waxaan soo gudbinayaa iyadana maanso kaloo la yiraahdo hanti hooyo. Hooyo adiga hubaala hirdoogliya amba qaad wanaaga hidiyo dhaqan asluub leh hanad nin raga xambaara hami hankay fogeeya hadal bara jidka toosan haybad adiga u yeelay aadmi hilow dadku u ooyo himiliye tuso wanaaga heer sare adiga na joojay higsi wacan adiga tusaale hawlay naftaada hooyo. haddaan hanyari u liito halaq inaad iga fogeysay hees intaad igu sabaysay hanti weeye jiifta bogoyga hees intaad igu sabaysay hanti weeye jiifta bogoyga hilmaami maayo uunka hadal maamo intaan maqlaayo hal intaad ka diiday qayrkaa hibe intaad igu ladhaysay hawraar intaad igu sabaysay humaag inaad rajo abuurtay hurdada intaad ka booday habeen madow intaad xambaartay hilmaami maayo uunka hadal maamo intaan maqlaayo hiil iyahoo adaa leh hubsiima adigaa u gaara hilmaam adigaa ka caagan hanfi adigaa badh riixa hanti adigaa sameeya hooy adigaa yagleela higsi wacan adigaa tusaale hawlay naftaada hooyo. hirdi adigaa u diiday hurin adigaa u moosa hebel adigaa ka xooray hantaaqiyo dhaawac diiday higaad adigaa u seesa huga astura jidhkayga hagaag adigaa u soora hal caana macaan u doora hayaan adigaa u doona haraad iyo gaajo diida higsi wacan adigaa tusaale hawlay naftaada hooyo. haadka samada duuliyo hirta hore salaadii habar dugaag wadaagaan hilibkiyo raqda guulaan hadh iyo maalin dooxaan hawlyari idlaystaan higsi wacan adigaa badbaado hawlay naftaada hooyo. marka maansadaasina halkaasay ku eg tahay. waxaan soo gudbinayaa maanso kaloo la yidhaha iyaduna xeelad xayiran baa la dhahaa. waxay ka turjumaysaa markaa kelmadan dadkeenu inta badan u adeegsadaan la yidhaha deeq bixiyayaasha oo aan leeyahay markaa anigu deeq bixiya waa ilaahay baan leeyahay markaa dadkaasi waa reer galbeedku inta badan waxay adeegsadaan siyaabo sifooyin gaara kolay halka bulshada ay naga soo galaan maalinta dumarka maalinta maxayga maalin diinteenu meel dadkani aad moodaysaa si dad ay dulaan ku yihiin oo dhaba sida aan wada ognahay waxay sameysteen waxyaabo la dhaha xuquuqul insaanka oo aad moodo inay muslimka dhaba oo muslimka inay muslimka u sameysteen markaa xuquuqul insaankaasi haddii ay gaala wax xasuuqayso iyo haddii ay gaala wax rogayso toona xuquuqul insaankaasi isagu mid qabta maaha ee waa mid isagu muslimka un qabtaa. sida aynu ogsoonahay imika oo kale dadku waxay yidhaahdaan cudurraha maxay ka dilaacay China wax noocaasa dad buu xasuuqayay haddii wadan muslim maanta 3 qof oo dil geystay oo qisaas diinteenu xaq sheegaysa in la tooganayna xuquuqul insaankaasi u hadlaya dhowrka milyan ee China joogay la xasuuqayna xuquuqul insaankaasi mid u hadla maaha. marka islaamku inuu waa xuquuqul insaanku waa wax islaamku loo sameystay sidaan anigu aaminsanahay mabda'ayga marka anigoo ka duulay kelmadda xeelad xayiran oo dadka reer galbeedka ay sameysteen oo dadkan markaa iyagoo leh deeq bixiyaal baan nahay markaa deeq bixiyaal ma aha deeq ilaahay ba sidaana deeq bixiya waa ilaahay baan leeyahay. markaa waxaan ka sameeyey maanso la yidhaha xeelad xayiran. saranaa dadkaygii sida ay u moogeen soortii ilaahe odhaahdaad silanaa odhaahdaas saatirkaa rasaaqee risaqa qaybshihiiye samadaa buluuga seeraha cagaarka sadrigaad raxmaadkiyo sareedadiyo ilhaantee sadgooniya u leedahay samadkii abuuraa samata bixiyo samaano deeqda siiya addoomihiise salliga nabigaa sareeda sala allahu calai wasalam soonkiyo cibaadada salaadiyo tasbiixda samada laga ajiiba saleelaad ka dhigatee samhariire cadaabaha samadkan ka magangeli sadriga waxaad ku haysiyo sinta waxaad ku sidataa sababtaa kala irdhaysee sibay isu yar dabraysaa sirtu way qarsoon tahay sunta maskii qaniinaa suldaaro uga dhigayo sabigiyo dhallaankiyo siqda ninkii garanaya siday u midaysan yihiin saansaantaan arkaayiyo sifahay matalayaan safkay galeenee silcaan hungoobeen sarar
iyo af dhiig lihi sinay sumaag joogaan uurka sama ku beero xidid saara xumahana adduunka aakhiro ku doorsada cadaab janno ka doorbida soonkiyo salaada weheshada sunnaha nabigeena raac sallallahu alayhi wasallam marka waxaan kusoo koobay intaasaan kusoo koobayaa waanad mahadsantahay